Halkan waxaa ku nool masaska ugu sun halista badan adduunka. بالعالم. Maska ugu sun halista badan adduunka waa maska Taiwan, Australia ayaana laga helaa. Wuxuu suntiisa ku dili karaa 100 qof, weliba hal qaniinyo. 45 sekin gudaheed ayaadna u dhiman kartaa suntiisa. Most venomous snake in the world. Waxaana loo aqoonsaday inuu yahay maska ugu sunta adag adduunka. Waxaana cilmi baaris la sameeyay lagu ogaaday in halkii qaniinyo uu ku soo saaro 110 milligaraam oo sun ah. Maska Black Mamba wuxuu gaar u yahay Afrika. Waa masaska ugu orodka badan adduunka. Kanna waa boqorka cobra. Wuxuu ka mid yahay maska ugu sunta xun adduunka. Waxaana inta badan laga helaa wadamada Indonesia, India iyo Thailand. Maantana waxaan booqan doonaa ninka ugu caansan Indonesia ee masaska xanaaneeya. Wuxuu noloshiisa inta badan ku qaatay jasiiradda Borneo. Jasiiraddaas oo hooy u ah kobrayaasha ugu badan adduunka. Magaciisu waa Banji. Beertiisa masaska ayaana imaanay. Meesha uu degan yahay caasimadda Jakarta waxay u jirtaa muddo 2 saac. Masko idilna halkan ayuu ku hayaa. Waa kan Banji. Canugiisana wuxuu ku ciyaaraa kobraha noociisa yaryar. Wuxuuna rabaa inuu noqdo sida aabihiisa oo kale. Bilooyin ka hor, canuga waxaa qaniinay cobra. Aabihiisa Banji ayaana ka daaweeyay, isagoo adeegsanaya qaab daaweyn xilliyadii hore la isticmaali jiray. Maskan ayaan ku bilaabeynaa. Wuxuu leeyahay kalar gaar ah oo aad u qurux badan. King Cobra wuxuu kuwa kale kaga duwan yahay inuu kaliya cuno masaska kale. Maskan hadda ayuu xubsiibanayaa, iyaga ayaana ka caawiya. Baqaarkiisii horena wuxuu isku bedelayaa mid cusub oo nadiif ah. Dhowrkii isbuucba mar ayuu sidan u xubsiibtaa. Maskan hadda wax sun ah ma lahan. Kobrahan wuxuu ula baxay Garaga. Banji oo kaliya ayaana maamuli karaa. Banji wuxuu masaska la noolaa tan iyo caruurnimadiisii. Kanna waa codka King Cobra. Haddaba sidee ula nool yihiin kobra sidan u halis badan? Banji wuxuu soo bilaabay inuu masaska la noolaado markuu 2 sano jir ahaa. Waxayna aaminsan yihiin in masaska ay fahmeen in Banji uusan dhibaataynayn. La hawla wala quwwata illa billah. Wuxuu shumiyaa afka maska kobraha, taas oo ku tusaysa ilaa heerka uu ku kalsoon yahay. Banji lugtan waxaa ka qaniinay yaxaas. Dhankeeda kalena cobra ayaa ka qaniinay. Si la mid ah faryareedan oo hadda uusan awood u lahayn inuu si dhammaystiran u fidiyo. Marka ugu horeysa ee uu ku qaniino, suntiisa waxay kugu sababaysaa inaad taagmato. Saacad kadibna waxaa isku dardarsamaysa calooshaada, kadibna waad matagaysaa. Kobrahan labada dhinac ayuu sunta ka soo daayaa. Masaska aan sunta lahayn ma laha labadaas meelood. Haddii hadda la reexo ku aadka kore, waxaa soo baxaysa suntiisa. Sunta gacanta waxba kama dhibayso, balse mar hadday isha kaa gaarto, halis weyn ayaad gelaysaa. Banji wuxuu haystaa 10 xabo oo King Cobra ah. Kanna waa King Cobra kale, wuxuuna leeyahay kalar dahabi ah oo ay dhif tahay in la arko. Terus. Kamu. Tan waa Banji hooyadiis. Kamana baqaan in cobra uu soo baxo xilliga ay hurdayaan. Maadaama cobraha lagu hayo meel adag, laguna xiro. Cobra isku dhaqan ma aha marka guriga la joogo iyo marka duurkan la keeno. 3 jibaar ayuu ka halis badan yahay markuu guriga joogo. هم اجريسيف 3 مرات بقول لك لما تحطها برا البيت. Waxaana hadda keenay keen aan sidaas uga fogeyn guriga. Sida idin muuqata, wuxuu isla markii bilaabay inuu weeraro Banji. Waxa awoodda dheeriga ah inta ku siinayana waa deegaanka dabiiciga ah ee uu asalkiisa ku noolaa. Banji laftirkiisa ayaa halis ku galay. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya kobraha caadiga ah iyo King Cobra? King Cobra wuxuu caan ku yahay inuu dherer ahaan gaari karo 7 mitir. Kobraha caadigana intaas ma gaaro. Sidoo kale, cobra dhiga ma lahan, waxna ma maqlo. Caasimadda waddankan ee Jakarta waxaa ku nool dad kobraha cuna, dhiiggiisana caba. Waxaan hadda iska dhaqaynaa sunta kobraha, kadibna waxaan ku celinaynaa guriga. Caagan ayaana lagu qaadayaa. Thank you. Hadda ayaana lagu celinayaa meeshii loogu talagalay. Caawana waxaan baadigoobi doonaa masas kale. Balse intaynan aadin, waxaan aadaynaa goob lagu iibiyo cunnada Indoneesiyaanka caanka ku yihiin. Cunnada inta ugu caansan waxaa loo yaqaanaa Sata Maringi. Caannimadiisa darteed,
dad badan ayaa sawiro la geliyay Banji. لا Delicious. Wuxuu sidoo kale caawiyaa dadka hareerihiisa degan ee ay masasku qaniinaan. Waxaana hadda u soconaa guri haweeney uu Banji ka daaweeyay sunta kobraha. Waana 70 jir. Kobra ayaa qaniinay iyadoo wadada iska socota. Kadibna qoyskeeda ayaa Banji ugu keenay gurigiisa. Isaga ayaana ka daaweeyay. Banji dhakhtar ma aha, balse waa hibo uu Alle siiyay. Waxaana hadda u soconaa inaan soo ugaarsano masas. Tan waa sababta ay masaska ugu badan yihiin guryaha halkan ku yaala. Waxaa deris la ah keymo. Maskan ayay hadda qabteen, wax sun ahna ma laha. Fase dengan pohon-pohon, warnanya hampir. Waxay sii socdaanba, mid kale ayay haddana geedka ku arkeen. Banji ayaana qabtay. Maskan sun ayuu leeyahay, balse bani aadamka waxba kama dhibto. Joe markuu qaban maagayna, wuu qaniinay. Banjina wuxuu ka saaray sunta, walow aysan markii horeba ahayn sun waxyeelaynaysa. Joe sababta uu u qaniinay maska waa in si xooga uu u qabtay. Banji wiilkiisa wuu la qabsaday haynta masaska. Haddana waa xilligii ay baadigoobi lahaayeen King Cobra. Anna ushan ayay i siiyeen si masaska aan ugu qabto. Way heleen kobraha nooca waaweyn, waana nooca ugu halista badan. Banji ayaana si xirfadaysan u qabtay. بانجي Sorry. Kau pegang nggak apa-apa kalau pegang ini. Oke. brother Indonesiana caadi ayay ka tahay inaad si maalinle ah u aragto masaska kobraha. King Cobra, masaska adduunka ugu halista badan wuxuu kaga jiraa nambarka 5. Tanna waa suntiisa. Muuqaalkeena maantana intaas ayuu noogu egyahay. Fadlan like ha ka ilaawin. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir si muuqaalo noocan ah aad u daawato. هون Indonesia. اندونيسيا ما انت